mahadsanid gudoomiye mahadsanid gudoomiye marka waad waxaan rabaa inaan wasiiradda iyo tiimka wasaaradda aan u mahad celiyo dadaalka dheeraadka ay sameeyeen iyo shaqada ay hayaan run ahaantii in waxbarashada la tayeeyo waa tiirka ugu muhiimsan ee dowladnimada markaan taas ka gudbo mudane gudoomiye horta sidii gudoomiye mana maqlaa annaga gudoomiye mana maqashaa xilwa jaamac fariiso waa ku maqalnaa doodaada wado mudane gudoomiye sharcigan hadda waxaa la dhex galay doodii labaad baa la dhex galay wuxuuna marayaa akhrintii koowaad buu maraya akhrinta koowaad waxay ahayd in laga fiiriyo mabaadi'da guud in laga fiiriyay ahayd ma ahan maxaa la yidhaahdaa in qodobadii la dhex dabaasho mudane gudoomiye xeerkan marka la fiiriyo qodobka 22aad fakradiisa b ee xeerkan wuxuu qorayaa oo sheegayaa in maxaa la yidhaahdaa miisaaniyadiisa ay ansixin doonaan baarlamaanka Soomaaliya marka la gaaro miisaaniyad sanadeedka macnaheedu waxay ku sheegaysaa inuusan lahayn miisaaniyad lahayn wasiiradda waa mahadsan tahay su'aasha mar bay ka jawaabtay oo sheegtay dad mushaar sii qaadanayay jiro laakiin sharcigii bay ku dhex qeexan tahay oo wuxuu sheegayaa in maxaa la yiraahdaa budgetkiisu uu noqon doono budgetka la ansixin doono marka la gaaro miisaaniyadda sanadka la gaaro mudane gudoomiye xeerkayaga xeer roosaadka golaha shacabka wuxuu sheegayaa hindii sharciyeed markuu maraya akhrinta koowaad inay ku lifaaqan yihiin qodobada ay ka mid yihiin mabaadi'da uu sharcigaas uu maxaa la yiraahdaa daboolayo inuu dastuurka waafaqsan yahay inuu budget leeyahay oo dhaqaale leeyahay mudane gudoomiye baarlamaanka golaha shacabka way fariisteen 3 maalmood dood socotay oo guddi loo saaray waxay go'aamiyeen in sharci hay-ado ama maxaa la yiraahdaa guddiyo dhaqaale ka dhalanayaan oo aan budgetkooda lahayn inaan golaha la horkeenin waxaan garan lahaa marka gudoomiyuhu ma baarlamaanka wuxuu iska yahay shimbareeyo heesa mase sharcigii baan la isla fahmin haddii baarlamaanka golihii inta fariistay go'aan la soo saaro la leeyahay guddi dhaqaale ka dhalanayo lama keeni karo golaha ilaa ay dhaqaalihiisa la soo hagaajiyo oo xeeroosaadkii sidaas sheegay oo maxaa la yiraahdaa go'aankii qaraarkii baarlamaanku sidaas sheegay gudoomiye maalinta labaad wax waqtiga loo qaadayo anigu ma garan karo hadduu jiro nidaam iyo sharci aan leenahay aan ku shaqeyno waxaan u baahannahay golaha sharciga anigu sharciyeyntiisa duri maayo problemna kama qabo inuu sharcigu shaqeeyana raalanka laakiin waa inaan leenahay nidaam iyo xeer anaga nahaga inaan leenahay u baahannahay taanta markaan u gudbo mudane gudoomiye sharcigan waxaa soo gudbiyey ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu soo gudbinayay wuxuu cuskaday qodobka 99aad fakradiisa A iyo B iyo C iyo cuskada markii la akhriyo dastuurka la akhriyo qodobadaas la akhriyo qodobka C wuxuu sheegayaa waajibaadka ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ah inuu sharciga horgeeyo golaha shacabka sharcigan aan hadda wadanaana waxaa ku taala in wasiirku asagu uu soo magacaabayo guddiga ka bacdi uu geynayo golaha wasiirada ka bacdina asagu uu faafinta qaranka soo saarayo waxaa ka baxsan totally wixii la dhihi jiray baarlamaan la dhihi jiraa ka baxsan wasiirka guddiga iyo maxaa la yiraahdaa golaha wasiirada wax u dhaxeeyo kale ma jiraan cid controleysa oo kale ma jirto ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxay tahay mas'uuliyadiisii baa waxa ka mid ah inuu golaha shacabka soo hordhigo xataa lama dhihin baarlamaanka jamhuuriyadda lama dhihin waxa mas'uuliyadiis ka mid ah golaha shacabka soo hordhigo waxaa nasiib darro ah in la yiraahdo sharci la samaynayo gole og ayadoo la arkin baa wasiirku wuxuu ku soo saarayaa faafinta qaranka soo saaraya faafinta qaranka procedure loo maraayo procedure wasiir ma procedure laba gole isu maray way golaha wasiirada ka soo baxay ka bacdina golaha baarlamaanka maray ka bacdina maxaa la yiraahdaa madaxweynuhu saxiixay markaas wuxuu ku soo baxaa faafin ku soo baxaa mudane gudoomiye haddii waxun ka jiraan shuruucda annagu aan isticmaalno ama xeer hoosada ahaado ama go'aanada baarlamaanku gaaran ha ahaadaan waxaan rabaa sharciga in la waafajiyo
sharciga qaabka uga gudbi lahaa akhrinta koowaad uga gudbi lahaa asagoo waafaqsan sharcigii iyo qaraarkii baarlamaanka soo saaray mahadsantahay